kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeeni falanqeynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda horfar media ee gaanka dunida oo dhan daawadayaal waa 7 bishii Abriil 2019 waa maalinimo axad ah wararka talteelka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda daawadayaasha qiimaha leh qodobadii horena waxaan ku rajeynayaa inaad aad falanqeyntii dhinaca waliba hubka nuclearka iyo awoodda dhinaca tabarta nuclearka ee Saudi Arabia ahaata ku talaabsatay isla markaana qarka ay u saarantahay inay ku soo biirto quudaha dhinaca nuclearka aad markaas aad runtii aad u fahanteen isla markaana la socotaan aan ku sii wararka wacaalaha dhinaca diblomaasiyadda gaanka dunida oo dhan madaxda dawladaha dalalka iyo Iran ayaa waxay ku kala yihiin magaalada Tehran kulan la isku arkay oo markaas ay doonayeen in dalalka boorka kaga jafaan cilaaqaadka dhinaca aqeedada ah ay leeyihiin iyo waliba in ay isdhexgal xooggan sameeyaan ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Adil Abdul Mahdi ayaa tagay magaalada Tehran toddobaadyo kadib markii Xasan Rouhani uu ka soo noqday magaalada Iraq xarunta waa Baghdad shir jiraayid oo si wada jira u qabteen labada hogaamiye ayaa waxay hoosta kaga xariiqeen waxa ay ugu yeedheen qodobada ay wadaagaan waxaana sheegeen in ay isaga yimaadeen oo ka wada hadleen qodobo waaweyn oo horay ee dalalka kale ee regionka ku yaala ama gobolka ku yaala ay ku kala tageen waxa uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Iran Xasan Rouhani waxaanu qabanay ayuu yiri kulan gaarno ah waxaanu ka wada hadalnay marka u horeysa qadiyada magaalada Al-Quds ee barakaysan ee Israa'iil ay qabsatay waxaana hoosta ka xariiqnay labada iyadoo aan saxiixnay waraaqo cadeynaya in labada dalo ay caasimada dalka iyo dadka reer Falastiin u aqoonsan yihiin ayaa lagu yiri magaalada Al-Quds isla markaana ay tahay tan noqon doonta waligeed ayaa la yiri sidoo kale waxaan hoosta ka xariiqnay in burleyda Golan Heights ama burleyda Golan Plateau ay yihiin ayaa la yiri qaybo kamid ah dhulka Carbeed ee dalkaasi Suuriya isla markaana taaka kamid ah aan la bursadoonin Yemen iyo dagaalkeeda in aan sago waqti badan loo dhameeyo isla markaana xalku uu ku jiro in dhinaca siyaasadeed oo nabadgelyo la raadiyo ayaa saddexda qodob ay ugu waaweynaa baa markay timaado arinta gobolka laakiin maxaa soo raacay markii ugu horeysay ayaa waxa uu sheegay Xasan Rouhani in dastuurka dalka Iraq lagu daray markaana lagu xardhay in qodob sheegaya in dalka Iraq aan lagaga soo duulin dalka Iraq waxa aan rajeenayaa ayuu yiri in qodobkaasi uu yahay mid wax weyn taray kadib markii dastuurka dalkaas lagu soo daray in uu mamnuuc yahay in ciid ay leedahay Iraq hal taakana ha ahaatee aan weerar lagaga soo qaadin oo weerar dal shisheeye ah iyo dalka laftiisa ah midna usan uga imaanin ayaa lagu yiri muhiimadda ay leedahay horumarka gobolka ayaa taa ah ayuu yiri dhanka kalena ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa waxa uu sheegay in uu rajeenayo in cilaaqaadka labada dal uu yahay mid aad horumar u noqdo isla markaana tusaale u noqdo dalalka kale gobolka waxa uu sheegay in ay doonayaan haday yihiin Iraq inay korontada iyo tabarta dhinaca biyaha iyo waxyaalo kale ay ka helaan Iraq ayagoo sidoo kale Iraq ay sheegtay inaysan uba joojin doonin cunaqabataynta lixaad kale ee uu Mareykanku ku nuxnuxsanayo halkaasi ra'iisul wasaaraha Iraq waxa uu sheegay in dastuurka dalkiisa sida uu sheegay madaxweynuhu uu qorayo in ciidamada shisheeye aysan weerarka ka soo qaadin ayuu yiri oo ka dhana Iran dalka Iraq wuxuuna sheegay intaas ay noqon doonto tul la sii hubiyo isla markaana la sii dabagalo halka nagala socota warfar media wararka wacaalaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan daawadayaasha qiimaha leh gaanka dunida oo dhan dawladaha dalalka reer galbeedka Mareykanka iyo Yurub ayaa markii ugu horeysay waxa lagu eedeeyay in ay iyagu yihiin kuwa qaadanaya mas'uuliyadda carruurta faraha badan ee kulli atay saddex kamid ah dalalka caalamka Islaam ee iyagu baaba'ay boobka haysta kaniisadda Catholic ee magaalada Rome ku dhex taala ayaa khudbad uu u jeediyay arday isugu soo baxday magaalada Milan gaar ahaan iskuulka la yiraahdo San Carlo Institute oo maxad ah dhinaca diinta Kirishtaanka iyo waliba maadooyinka kale laga barto ayaa khudbad markii ugu horeysay uu ku tafaasiil dheeraad kaga bixiyay cidda laysay carruurta yaryar ee faraha badan ee dunida ku leeday gaar ahaan Suuriya Yemen iyo Afghanistan ee tiradooda saxda aan lahaynin laakiin la aaminsan inay boqolaal kun gaarayaan ay tahay ayuu yiri dalalka reer galbeedka Mareykanku ugu turturoon yahay Yurubna ay ku xigtay ayuu yiri isagoo sheegay inay ka dhalatay laba arrimood kow colaadaha ay halkaas ka kiciyeen iyo laba hubka ay u iibgeeyaan ayuu yiri dalalkaasi ee ayaga dadku isku laayaan ama lagu laayo ayaga ayuu asagoo la hadlayay da'yarta ayagu inta badan aan wax badan kala socon caalamka ayuu yiri ma idin sheegaa cidda ay tahay in lagu eedeeyo xasuuqa carruurta yaryar ee leanaya ee aad aragtaan ayaga oo xafaayad xiran oo meydkoodii la kala gurayo waxa weeye ayuu yiri waa Yurub iyo Mareykan wuxuu yiri Suuriya Yemen iyo Afghanistan waxa ka dhacaya waxa weeye ayuu waxay ka dameeyaan dalalka qaniga ah ayuu yiri ee reer galbeedka kuwaas oo horiya colaada isla markaana iibgeeya hubka isla markaana geeya goobaha dadka jilicsan joogan hubka si la isugu gumaado oo la isugu xareeyo ayuu yiri waxa aan idin sheegaya ayuu yiri taasi waa tul la ogsoon yahay waana lagu xisaabtami doonaa ayuu yiri dawladahaas waxa ay hubka u soo saaraan in ay dadku isku gumaadaan ayuu yiri Pope Francis wuxuu sheegay markaasi in dalalku ay yihiin ayuu yiri kuwo markaasi doonaya wuxuu ku tilmaamay
in ay dadka isdhameeyaan ayuu yidhi. waxa uu sidoo kale ka hadlay qulqulka dadka soo galootiga Talyaaniga kusoo qulqulaya isagoo yidhi dadka Talyaaniga kusoo qulqulaya yaa kasbay in ay dhacdo ayuu yidhi wax loogu yeeray ayuu barakac inta leeg maxay u soo barakacayaan dalalkoodii ayaa hub loo iibgeeyay ayuu yidhi lacagtoodina waxaa la siistay yidhi hub ayagu ay isku laayaan sidaa daraadeed wuxuu yidhi waxaa dadka qaarkood ay leeyihiin ayuu yidhi Talyaaniga waa la soo buuxdhaafiyay Talyaaniga Yurub oo dhan ayuu wuxuu yidhi waxaa keenay ama Yurub oo dhan waxa ay ka soo askontay ayuu yidhi soo galooti sidaa daraadeed soo galootigu waxay keenaan ayuu yidhi horumar ma keenaan dhibaato boobka ayaa hadalkan adag ee uu dalalkaasi ku gamay waxa ay kusoo biirmayaan iyadoo dunidu ay haatan isha ku hayso dagaalka culus ee dalka Liibiya oo ayagu ay burburiyeen ay ka soconaya haatanna intaynan bal ka bixin arintaas labada arrimood si isugu xidmaan bal in ku laabano dalka Liibiya maxaa ka soconaya maxaa ka jira dalka Liibiya daawadayaasha qiimaha leh sidoo kale waxay noo soo socdaa ra'iisul wasaaraha Yuhuudda Netanyahu oo sheegay gordhow ku dhawaaqay in dhulka daanta galbeed ay dhisteen sida sharci darrada Yuhuuddu gabi ahaantood uu ku darsanayo ama uu ku biirsanayo dalka Israa'iil sidii Golan Heights oo kale iyo Quds oo kale sidoo kalena Turkiga oo isaguna dunida ugu baaqay in la qabto waalida Netanyahu ayaa kamid ah arrimahaas baa iyaguna noo soo socda falaqeyn iyo warar xooggan ayaan arrintan ku sameeyay doonaa iyadoo dhulkii Falastiin loo jiray magac ahaan laga yaabo inuu maalmaha soo socda baabo haddii sidan ay ku sii socoto balse aan horta qodobkan aan ku noqdo wararka ugu dambeeyay ee dalka Liibiya oo dhibaatooyinka xooggan ee ka soconaya ay kamid tahay kadib markii dawladda dalka Liibiya afka ciida loo daray haatan wararka ka soo baxaya ayaa sheegaya in dagaal culus ay kooxda liirada GNA ayagu isku bixiyay ay ka wadaan hareeraha magaalada isla markaana airportka magaalada Tripoli ayaa la sheegay in dagaal faraxdi isla tagay oo ka soconaya dagaalka ayaa u eg mid gacanta la isla tagay kadib markii uu adkaaday isla markaana waxaa la sheegay in dawladda taagta daran ee dalkaasi Liibiya ee qaramada midoobay ee taageerto ciidankeedu ay jilbaha aasteen isla markaana aysan filaynin weerarka markaasi weerar celiska kaga yimid kooxda uu hogaaminayo dagaal ogaha la yiraahdo General Khalifa Haftar kaasoo asagoo weerar aad u culus ku haya magaalada Haftar ayaa gordhowta waxa uu ku dhawaaqay inuu gabi haamba hawada dalka mamnuucay isla markaana diyaarada ka mamnuucay kadib markii uu sheegay in saldhigyo ciidamo ay leeyihiin ay dhowr diyaaradood oo dawladda taagta daran ay leedahay ee weerar ku ekeysay kuwaasoo markaasi kala jabiyay gurmadka si kastaba ha noqotee telefishinka dalkaasi Liibiya ayaa waxa gordhowta ofishiil shiraad oo ku qabtay Fayis al-Sarraj oo ah madaxa markaasi guud ee isagu isugu yeeray ciidanka Liibiya isla markaana ah dawladda la aqoonsan yahay madaxeeda dawladda dib u heshiisiinta la dhaxay ee Liibiya ayaa waxa uu sheegay in la iska waabinayo wuxuu ugu yeeray khiyaanolaha dagaal ogaha Khalifa Haftar wuxuuna ku tilmaamay inuu khiyaamay dalka iyo dadka waxa aan gacmaha iyaga ka dhowradanay buu yiri dagaal isla markaana waxaan gacmaha iyaga u balaadhidanay ama gacmaha iyaga waxay u furnaayeen nabadgelyo hase yeeshee weerarka gardarrada ah wuxuu u yahay ay yiraahdeen mid uu soo qaaday Haftar iyo maleeshiyaadka isaga taageersan haatan waxa ay sameeyeen weeraro ka dhan ah magaalooyinka iyaga iyo waliba caasimadda ayuu yiri ninka madaxda ka ah dawladda waxaan haatan aan u sheegaynaa wax kale nagama helaysaan laakiin waxa aad naga goosanaysaan waxa bad ayuu yiri isla markaana waxaanu noqon doonaa ayuu yiri kuwa dagaalka iyo ku guuleysta ayuu sheegay hase yeeshee afayeen u hadlay idinkan dagaal ogaha ah ee isagu dagaalka ku qaaday bariga dalkaas ka soo qaaday isla markaana magaalada caasimadda ku ekeeyay ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba horta hawada dalka la mamnuucay sidoo kale wuxuu sheegay in dawladda halkaasi dhabiga loo culi doono wuxuu yiri waxa aan sameyn doonaa ayuu yiri xanuujin aan idin geysano isla markaana waxaanu iska xoreey doonaa dalka sidoo kale waxaanu sameyn doonaa ayuu dib u safeen dalka hawadiisa waanu xidhnay mana jirto wax soo gali kara garoonka diyaaradaha ee magaalada ayaa la sheegay in gabi ahaanba uu gubanayo sidoo kale koonfurta xaafadaha magaalada Tripoli ayaa la sheegay in dagaal u eg markaasi mid jilbaha la isku aastay uu ka soconayo magaalada Misrata ayaa la sheegaya in ciidamo ka qulqulaya ay ku qulqulayeen jiida dagaalka kuwaas oo u helinaya jaranka markaasi dagaal ogaha kaasoo isagu doonaya inuu dalka gabi ahaanba qabsado waxaana la sheegay in lacag xooggan iyo dhaqaale xooggan ka soo qaatay dalka isku tagay Imaaraadka Carabta kuwaas oo ayagu bariyahan kala dilaala dagaalada sokeeye dalalka Carabeed iyo dalalka caalam islaam ka soconaya wararka ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dunida oo dhan ay aflabada yeedhay golaha amaanka qaramada midoobay ayaa qaraar ku gaaray isla markaan aan loo kala harin in dagaalka la joojiyo isla markaan xabadda la joojiyo taasoo ka dhigaysa in cidii ku xadgudubta ay sharci caalami jabisay hase yeeshee sidii ay ugu haliileen xilligii ninkii loo jiray Muammar al-Gaddafi isla markaana markii qaraarkii qaramada midoobay uu soo baxay
ka hor intuu soo bixin diyaaradaha Miraajka ee dalka Faransiisku ay garaacista bilaabeen ayaysan jirin cid ka hortagtay wadaadka dowladda la aqoonsan yahay weerarka ku ah. Wararka ugu dambeeyay ayaa sheegaya in golaha G7 la yiraahdo waa dalalka toddobada ah ee horey G8 u ahaa jiray intii aan laga saarin ama laga eriyin dalka Russia waxa ay war qoraal ay soo saareen ugu yeedheen in dalalka ama cidda ku xadgudubta go'aamada qaramada midoobay la xisaabtami doono dalalka Mareykanka, Canada, Faransiiska, Germany, Italy, Japan iyo dalka Putin ayaa qoraal ay ku saxan yihiin golaha wasiirada ee ku shirasana shirka jaraa'idda kalaha arrintan waxa ay sheegeen in ay kula xisaabtamayaan ay yiraahdeen cid kasta oo dagaal qaadaysa. Haftar ayaa sheegaya in marka uu dalka qabsado uu ku dhawaaqi doono dowlad rasmi ah. Si kastaba ha noqotee ergeyga qaramada midoobay ee isagu ku haray magaalada Tripoli ayaa waxa uu sheegay in uu wali qorsheenayo in shirkii 12 iyo 14 bishan Abriil ka dhacayay gudaha magaaladaas isla markaana ahaa shirkada heshiisiinta ay wali ka dhur sugayaan markaana isa wari ka qoosan. Halka nagala socotaan Warfadhi Media wararkii ugu dambeeyay warbixinada dhinaca diblomaasiyadda ayada oo ay u muuqato markii dambaysa in jiritaanka dadka reer Falastiin iyo dhulkoodu uu sii go'doomayay isla markaana ay dhibaato xooggan oo lixaad ay ku hayaan Yuhuudda oo kaashanaysa dalalka reer galbeedka gaar ahaan dalka Mareykanka iyo Carabta oo ka aamusan ayaa haatan waxa uu Netanyahu uu doorashada ku soo galay kuna dhawaaqay in kumanaanka kun ee guri ee daanta galbeed sida darrada ay uga dhisteen iyo waliba dhulka lagu hareeraysan yahay ay uu si rasmi ah ugu aqoonsan doono dhul weyn Israa'iil ay leedahay. Isagoo telefishin Yuhuud leedahay waraysi siinayay channel 12 channelka la yiraahdo ayaa waxa uu sheegay in ay dowladda Israa'iil xukuumaddiisu haday guuleysto ama haduu asagu doorashada ku guuleysto aan siinano ayuu doorashada isla markaana hadii aan doorashada ku guuleysano inaan siinano natiijada ka soo baxda doorashada ee anagana lagu guuleysto inaan abaal uga dhigano ayuu yiri ama aan uga dhigano markaasi abaal gud ayuu yiri shacabka Yuhuudda in aanu u aqoonsano dhulka daanta galbeed ee aanu qabsanay ayuu yiri dhulweynaha Israa'iil. Wuxuu yiri 400,000 oo qof ayaa waxay degan yihiin ayuu yiri dhul la yiraahdo dhulka sharci darrada ama dhismayaasha sharci darrada hadaba dhulka sharci baan ka dhigi doonaa isla markaana waxaan u sheegay sidaas madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaan u sheegay ayuu yiri in wax kasta haday dhacaan heshiis kasta ama Mareykan ka dameeyo ama cid kale ka dameysay hadii uu yimaado aan la celi doonin isla markaana laga tanaasuli doonin dhismayaasha sharci darrada ah ee halkaas aan ka dhisnay isla markaana noqon doonaan dhul ay leedahay ayuu yiri. Israa'iil ayaa waxa ay dejisay 400,000 oo qof waxaana halkaas ka dhistay guryo aad u tiro badan iyadoo la sheegay in ay yihiin guryo ay ugu tala gashay in dadka Israa'iilka lagu beero. Si kastaba ha noqotee dowladda dalka Turkiga ayaa aflabadii ka yeedhay arrintaas waxaana ay ugu yeedheen qorshaha cusub ee uu doonayo inuu daanta galbeed oo kula wareego ninka la yiraahdo ay yiraahdeen Netanyahu in ay tahay ay yiraahdeen mid cadeynaysa in dhammaan shuruucda caalamiga international law loo yaqaano qararadii golaha ammaanka qaramada midoobay ama waxa loo yaqaan United Nations Security Council golaha guud ee qaramada midoobay General Assembly dhamaantood lagu tuntay sida uu sheegay afayeen u hadlay ururka talada haya ee dalkaasi Umar Saliki. Mr. Saliki ayaa ku tilmaamay go'aamadaas inay yihiin kuwo aad u foolxun isla markaana ay taageero ka helayaan ay yiraahdeen madaxweynaha dalkaasi Mareykanka iyo maamulkiisa oo ay ku tilmaameen Donald Trump qosashadii magaalada Qudus iyo buuraleyda Golan Heights ee Israa'iil bacaramisay. Si kastaba ha noqotee waxa uu sheegay in dowladda dalkaasi Turkiga aysan fadhiisan doonin ilaa iyo inta Netanyahu la arkayo ay yiraahdeen oo salka dhulka dhigtay. Waxa ay ugu baaqeen in waxa uu wado Netanyahu ay tahay waali waa in la joojiyaa waalida Netanyahu waa in la joojiyaa waalida faraha badan iyo miyir qabla'aantan uu doorsamay ay yiraahdeen hadii uu maleeyay in 67 dagaalkii 6 maalmood ay guul ahayd wali guul mu gaadhin ayaa lagu yiri warka qoraalka carada badan ee buuxisay dalka Turkiga soo saaray. Turkiga sidoo kale wuxuu ugu baaqay dalalka caalamul islaam gaar ahaan jaamacadda Carabta in loo baahan yahay in ay arrintan siyaasiyan ay ku ciqaabaan dalalka Mareykanku ka mid yahay isla markaana la qaado ay yiraahdeen talaabooyin gol faraareel laga gaarayo ka haray dhulweynihii reer Falastiin ay yiraahdeen. Daawasho qiimaha leh faafinta wararka iyo warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda waa xaggina daawadayaal ururin xogo iyo tafaasiilo sidoo kale daawasho qiimaha leh falanqeyno iyo kuurgelis dhinaca wararka iyo qaada dhigis keenis xogo iyo waliba inaynu sameeyno macluumaad waaweyn oo xagganada hadii ay baydmo tan iyo inta sarki doonno daawasho qiimaha leh amaano.